dhammaan bulshada iyo dhalinyarta iyo ganacsatada iyo nabadoonada iyo aqoon-yahanada iyo abwaanada oo meelankii kantii xasil qaamay oo kooyeen si aan ka hadlan daldan Soomaaliyeed waayo sababtoo ah qofkii intuu ku taageerahayaan mise geekii iyo ay sheegaan inta taageeran ku muujahayaan natiijadii ay jawaabtay uu silakooy oo magaaji Abdulle Lankasaay bedeli sabab sababtana may buaha dadaal iyo karte iyo dadaal uu silakooyo taasina ma maxadiye isku leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhammaan dhalinyarta iyo dumarka iyo ragga in sheegada shalduun ganacsatada mayba ka salaamay salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhammaan salaam dib mayba anta baaqan ku jeediyay codsi madaxweyne lafta gareen iyo ergooyinka iyo nabadoonka beesha iyo Abduweli Samafale dhammaan anta mayba ku jeediyay codsi ah oo ayna dhalinyarta koonfur galbeedka dhaqan Puntland in la kala doono doorashadaas ka guuleysida iyo dadku wal dooradooba dhamaantii mayba faraanaha iniyo in sheegada Ilaahay ku qabsadan sababta ma ayta qofka bani aadamka markuu si khaladaad mise dambiye ama waxyaabo qaldan baduus sameeyo oo waalidiintiisa bulshada lamid ah isku horgabada oo si sar markaasay duus sameeyo mayba tusaale naqadaas markaasayti in wala madaasayti argo in liidata Ilaahay uu qaaday sababtiina saas daraadiyana mayba leenay in sheegada dhalinyarta iyo nabadoonadaasi ergooyinkaasi dhalinyarta iyo odayaasha bale mayba laha isu ka shaqeeyay kurtan wala siinka amaano an sameeytan amaanka dhaqaaqdan wala siinka dhalili doon talama adeyti madaxweyne lafta gareen abdaasiis lafta gareen mayba leenaha mudane madaxweyne abdaasiis wadna iratan insaarni Abduweli wadna iratan insaarni mudane madaxweyne mayba leena doorkaada lata qaaday iyo ergooyinka isina mayba san leena in sheegada dadaalkii iyo dadnimidii qurxiya wala siinka amaano doon insha Allah ka shaqeeya mayba in sheegada mayba ka gabagabaayay shacabka Soomaaliyeed iyo kan koonfur galbeedba madaxda walilaahi hilalkaasay la raadiyahay an alafa insha Allah mayba siin ku odsadaan hoob dhalinyartii Puntland ka noolaytay ka dhaqanaaytay koonfur galbeed ku jeeynatin inisin taayartan sababta meetan qofka madaxda mayba leey ixtiraam leey inada taayarto dhiirigeliyay laakiin hoobadis bartaagto masadalaayeen iyo afliqaada iyo liidashada liidasada 24 sano garab taagnaata mayba suurtagal shaqadu sikiin qabado mise horan joogada meelu sikiin hor suranyi inuu ku nidaba naftarkiisaba usu surnaado ay sababtoo ah qofka markii la amaano ama in sheegada natiijada ama wara uu samada sayti sababtoo mise waxyaabaha soo hawlo soo qabado la ka amar ama la ka dhiirigeliyo mayba suurtagal ah inuu si dhiirigelin badan meelaha ku qaado waxyaabaha khaladaadka naftirkiisho isku fiiri sababtoo ah oo isku waayigeliyo ama uu sarama in sheegada uu si dadaal sheeyay ama si xilshay si saara adoo walkii amaano kor sameeyo korta may walkiin ka dhalayo aan sameeyta mayba laha waqtiga in sheegada yari mayba ka gabagabaayay in sheegada dhamaan walaalada geeka intan iska qoyti ahnoon may isku jirnaa may iskaaraga jar siisin halqaantan Soomaalinimada la isoo waqtiga gobolka ganacsiintiisa hajoojideen shaqooyinka hajoojideen isin waqtiga biideen mayba sinka eedan ka mahadsantiin wabillahi tawfiiq assalaamu alaykum ma sha Allah eediyada ma haysan Cabdi Naasir